muuqaalkan kooban waxaan ugu talagalay inaan idinku baro ama aan idinku tuso qaabka loo sameeyo waxa loo yaqaano profile picture frame-ka Facebook uu isticmaalo ee qof kastaaba awood u leeyahay inuu mid samaysto isla markaana ay dadka kale ee caalamka jooga ay isticmaali karaan. runtii muuqaalkan inaan idiin soo gudbiyo waxaa igu dhaliyay maadaama waddankeena laga soo sheegayo in xanuunka COVID-19 uu gaaray ayaa waxaan markaa igu dhashay in picture frame-ku uu noqon karo ama profile picture frame-kani uu noqon karo wax ka qayb qaata wacyigelinta bulshada sida in loo nashqadeeyo in dadka lagu wacyigeliyo oo dadka markaa loogu sheego inay guryaha joogaan oo kale, inay markaa gacmaha iska dhaqaan oo kale, in markaa ay taxadaraan oo kale, inay iscaawiyaan oo kale. waxyaabahaas oo dhan ayaa looga faa'iideysan karaa. runtii waa tool aad markaa powerful u ah oo dadka wax nashqadeeya haddii si qurux badan ay u sameeyaan ay ka faa'iideysan karaan. sanado ka hor ayaan hadda ka hor sameeyey, laakiin markaa waxaan dadka ku tuseeyey oon isticmaalayay Photoshop. maanta laakiin waxaan isticmaalaynaa Adobe Illustrator ayaan isticmaalaynaa. sababtana waxay tahay maadaama hadda wax badan laga bedelay oo nashqadu sidii hore aysan ahayn waxaan go'aansaday inaan isticmaalo programkan. iyo sidoo kale in dad badan laga yaabo in aysan Photoshop haysan laakiin ay haystaan isla programkan kale ay haystaan. marka taas ayaan rabaa inaan idinku tuso. marka ugu horeysa waxaa soo furaysaa programka aad isticmaalayso mid ku raba ha noqdo, laakiin hadda waxaan idinku tusayaa sidaan idin sheegay Adobe Illustrator-ka. markaad soo furto waxaad ku dhufanaysaa qaybtay ku qoran tahay file, kadibna waxaad leedahay new. marka waxaa kusoo furmaya qaanadan waxyaabo badan baa kor ku qoran sidaa ujeedo, waxyaabo badan baa laakiin hadda maadaama waxa aan samaynaynaa uu yahay waxaan ugu talagalnay internetka aysan ahayn wax la daabacayo, waxaan isticmaalaynaa web. qaybtay ku qoran tahay ayaan ku dhufanaynaa. markaan ku dhufanno waxaa kuusoo baxaya qaybtan magac ayaad u baxsanaysaa. waxaan leenahay frame oo kale aan u baxsanaynaa. markaan frame u baxsano waa magaca aan ku ogaan doono. kadibna waxaan imaanaynaa qaybtaas ay ku qoran tahay balaca iyo dhirirka cabirkooda aan gelinayno. waxyaabaha markaad ku dhufato web ay muhiim u tahay waxay ka mid ah isla markii waxa isbedelaya qaybtan waxay isku bedelaysaa pixels isku bedelaysaa. haddii laakiin aan ku dhufto qaybta daabacaad oo kale ama mobile oo kale ama qaybta filimada loogu talagalay iyo qaybta artiska, mar walba ood mid ku dhufato qaybtan way isbedelaysaa. marka taana waa inaad isha ku haysaa. waxaan rabnaa marka hadda cabirkaan isticmaalayno waxa weeye 1200. haddana qaybtan kale ee dhirirka aydan waxaan ka dhigaynaa 1200 isla sidii oo kale. markaan ka dhigto wax kale ma taabanaysid, waxaad leedahay abuur. waan sugaynaa. waxaan noo soo furmaya qaybtii aan samaysanay. waxyaabahan oo kale inta iska dhigo maadaama aan hore ugu shaqaynayay sida ay halkan igu saaran yihiin. inta badan markaan shaqaynayo waxaan sameeyaa waxyaabaha aan raba inaan isticmaalo ayaan geesaha soo saartaa. marka sidaa ujeedo hadda waxaan noo soo furmay qaanadii ugu horeysay oo aan ku daabacayno ama aan ku nashqadaynayno waxa aan rabno inaan dadka ku wacyigelino. adigaa laga raba marka inaad ka fakarto waxa ama ereyada aad meesha ku qorayso, ama hadday ereyo noqdaan ama hadday noqdaan graphics ay noqdaan ama wax markaa aad rabto inaad ku muujiso kale, adigaa laga raba hal abuurkaas inaad la timaado. aniga laakiin waxaan ku tusayaa keliya sida farsamo ahaan loo sameeyo aan ku tusayaa, laakiin ereyada aad qorayso waa mid adiga ku taala. maxaan sameynaynaa marka hore waxaan go'aansanaynaa qaybtan aan rabaa inaan ku sharaxo waxay ka kooban tahay. marka waxaan rabaa inaan musawir ahaan ku tuso. laba qayb ayaan u kala qaybinaynaa. qaybtan kore kalarka aan bedelo saa uu aragto kalarkan oo kale aan ka dhigo. qaybtan kore ee kalarka uu saaran yahay waa qaybta la rabo in la baneeyo. sababta loo baneynayaan waxay tahay qofka aad ugu talagashay inuu frame-kan isticmaalo ayaa qaybtan iskale. marka waa laba taabtaan. waxaa la rabaa qaybtan in laga dhigo transparent ayaan ka dhigaynaa. waa ku tusi doonaa sida loo sameeyo. marka qaybtan wax qoraal ah ma lagu qorayo. qaybta keli ah ee annaga noo soo hartay markaas ee farshaxan ahaan aan rabno inaan isticmaalno waa qaybtan kale hoose. qaybtan kalarka idan aan bedelo si aad u aragto farqiga u dhaxeeya. marka frame-ka labadaas qayb aan kala qaybinayna. maxaan ku iri qaybtan
waa lama taabtaan waxa iskale dadka ayaa iskale waa loo banaynaya annaga laakiin halkaan aan rabnaa waxa la wixii fariina oo aan dirayno inaan ku muujino okay aan tira marka haddaad aragtay qaybtan hoos sideeda u dhaafanaya marka waxyaabaha aan ku iri way isbedeleen waxaa ka mid ah xilligii hore kow markii anigu aan sameynayay oo ahaa isla markii uu programkan soo baxay oo Facebook uu dadku u ogolaaday inay sameyn karaan markii aan sameynay kii ugu horeeyay waxa hadda iska bedel waxay tahay bariga qoraalka waxa la dhigayay meel walba ayaan la dhigayay oo qaybtan hoose kamid ah tusaale ahaan markaan ku laabto sawirkan halkan eeg qoraalka waxaan dhigay qaybtan aan dhigay soo ma jeedid marka halkan qoraalka la yaala taas barigaas way shaqeynayso laakiin hadda ma shaqeynayso sababtu maxay tahay hadda waxay u shaqeynaynin marka qofku uu soo saarto framekaaga sidaan oo kale ayuu ku soo baxayaa marka eeg halkan marka waxa dhacay qoraalkii wuu qarsoomay waxa la rabaa marka fariinta aad diraysid qayb kamid ah inaad halkan ay ka muuqato oo qof kastaaba marka uu arko in qofkan uu frameka saartay wuxuu arkayaa asagoo goobaabin ku jira ayuu arkayaa marka waa in qoraalkaagu uu halkan yaala sababtana dib ayaan ka ogaan doontaa waxaan ka wado marka iska ilow qaybtan ah in qoraalka meel walba la dhigi karay waagaas xilligaas way shaqeynaysay laakiin hadda way bedeleen marka waxaan rabnaa hadda ku soo noqo halkan waxaan rabnaa qoraal hadaan sameynay tusaale waxaan leenahay faraha dhaq oo kale aan leenahay tusaale ahaan faraha dhaqo ama guriga joog oo kale aan leenahay guriga joog okay aan weynaysta farta marka guriga joog markaan dhaho guriga joog markaan aan qoro tusaale ahaan marka farta waa inaad ka fakartaa aad isticmaalayso inta badan dadka Soomaalida ah iyo dadka kale caalamka aragtida xagga farta way kala duwan yihiin adduunka farta waa weyn oo marka way yartahay lama isticmaalo inta badan laakiin markaad rabto in soo jiidasho u yeesho oo qof kasta oo arka inuu hore ka arko oo hore ka damco inuu isticmaalo markaas oo kale waxa u baahan tahay in farta aad weynayso oo far xoog badan oo cayilan aad ka dhigto marka hadda maxaan sameeynaa farta waa iska bedelaynaa waxaan ka dhigaynaa far ballaaran ayaan raadinayaa okay Rockwell kan oo kale waa fiican tahay guriga joog oo kale ayaan leenahay marka waxaan bedelayaa colorkan waxaan ka dhigaynaa mid xooga u eg calanka Soomaaliya oo kale halkan eeg marka eegto foreground iyo background ayaa kala dhaxaa inta badan muuqaaladeedu waan ku sharxaa qaybta hadda noo dooran waa qaybtan kore qaybta hoose stroke ay ku qoran tahay stroke ma rabno hadda qaybtan stroke waa diilinta madow soo ma jeedid oo geesaha ku taala way stroke marka ma rabno inaan stroke ka dhigno waxaan leenahay click ku sii stroke qaybtaas hoose ayaa nan ayaad ku dhufanaysaa ja marka waa ka baxay madowgiisa oo ma jeedid taas marka halkaas aan ku dhaafaynaa colorka waxaan ku yiri waa iska bedelaynaa waxaan ka dhigaynaa color xoogaa u eg colorada calankeena oo kale colorka saxda ah ma ahan laakiin waxaan rabaa xoogaa qofka arka inuu fahmi karo because wadan kasta wuxuu leeyahay midab u gaar ah hadda Canada kale waa midabka guduudka oo kale annaga wadankeena hadda calankeena waa blue marka waxaan isticmaalaynaa mid u eg ma ahan inaan ku dhahayo lambarkaas waa cabirka saxda ah ee calankeena maya kaliya waxaan rabaa inaan midabka ka dhigo blue inaan ka dhigan rabaa ama blue midabka blue aan ka dhigtay haddii midabka blue aan ka dhigtay calankeena xidigta ku taala midabkeedu talo muxuu ahaa dabcan cadaan fartan waxaan ka dhigaynaa cadaan markaan sidaas sameyno awal markii hore waxaan sameyn jirnay qoraalka saasaan ka dhigi jirnay hadda laakiin waxaan ku iri way isbedeshay waxaan rabaa qoraalka inaan dhexda dhigno marka waxaan sameynaynaa waa yareynaynaa guriga joog marka mar walba qoraalka kor la saarayo ayaa ah mid kala raba inuu soo jiito qofka indhihiisa maxaan sameynaynaa marka guriga joog waliba way dheer tahay waa is hoos dhigaynaa marka farta hadda way toosan tahay marka waxaan leeyahay guriga hoos waxaan dhigaynaa joog
marka haddii aad rabto inaad isku aadiso sida ujeeda halkan oo kale waxaad samaynaynaa waa tiraynaa qaybtan kadibna isla guriga ayaan duplicate ku sameynaa. duplicate waxa waaye adoo haya alt adoo haya ayaa waxa ku soo baxay marka alt qabatid fiiri alt markaan qabto waxa soo baxay labadaas falaarood oo midna madow ka tahay midna cadaan ka tahay. taa macnaheedu waxay tahay duplicate ayaan ku sameyn karaa ama duplication waxa loo yaqaan ama copy. waa hoos dhigayaa laba xabaan ka dhiganay kana hoosaan bedelayaa marka waxaan leeyahay waxa ka dhigtaa joog. marka si marka loo qurxiyo dadka wax nashqadeeya wax waxa jira la yiraahdo typography la yiraahdo oo ah kaliya qaabka aad wax u nashqadeynayso xagga farta ayaa loogu talagalay. waa barnaamij ama waa koorso dhan oo la qaato oo typography la yiraahdo oo ah sida dadka nashqadeeya wax nashqadeeya la rabo inay farta u qurxiyaan. kaliya inaad iska qorto ma ahan laakiin farta inaad eegto meeshay taallo dhinaca ay taallo colorkeeda inay midna weyn yahay midna yar yahay wax loo yaqaano maaragta hierarchy wax la dhaho oo kale waxyaabahaas oo dhan marka aad jira. laakiin hadda waxaan rabaa inaan sameeyo guriga waa yareynayaa. marka guriga waxaan ka dhigayaa farta xoogaa waa yareeyay laakiin joog ayaan weyneynaynaa. marka marka hadda labadan far waxaan sameynaa waa isku xiraynaa group ayaan ka dhigaynaa. dooro midaas kadibna midda hoose dooro kadibna waxaad qabataa control adoo haya xarafka G ku dhufo ama ga. marka hal xabaan ka dhigay soo ma jeedid haddaan qaado way isla qaadmayaan sababta waan mideeyay waxaan ka dhigay group ayaan ka dhigay. maxaan sababtan group uga dhigay waxay tahay waxaan rabaa haddii aan rabo qoraalkan inaan dhigo dhexda qaybtan buluuga ah dhexdeeda haddaan dhigo inaan rabo haddaan cabir isdhaho indhaha ka cabir isdhaho saanay noqonay laakiin sax ma ahan because waxa laga yaabaa dhinaca inuu badan yahay dhinacan inuu badan yahay. marka waxaan rabaa kala barka oo saxda ah bartamaha inaan dhigaa rabaa qoraalka. maxaad sameynaynaa marka waxaan sameynaa waa dooranaysaa qoraalka haddana waxaa qabanaysaa control ayaa qabanaysaa haddana waxaa dooranaysaa colorka ayaa dooranaysaa. maxaan isla doortay labadooda waa doortay. si kale u dooran karta ma jirta ahaa saanaad leedahay waa doorta labadooda markaad doorato waxaad imaanaysaa qaybtan imow. qaybtan waxaa la yiraahdaa alignment ayaa la yiraahdaa ama waxa ku qoran align soo jeedid. align waxa waaye waxa ay ilaalisaa ama ay ku saxaysaa in wuxuu dhinaca midig yaalo ama bidix yaalo ama kor yaalo ama hoos yaalo ama dhexda yaalo ayay ku saxaysaa. haddii halkan isku saarnayn waxaad kala soo degaysaa windows ayaad ku dhufanaysaa hoosaad imaanaysaa waatana halkan ku qoran tahay align check ayaa saaraysaa. haddaan checkta ka qaado waa iga qarsoonta soo ma jeedid. haddaan rabo inaan soo ceshto waan imaanaya align waa ii soo baxaysaa. marka align timaadid qaybtan hoose imow. qaybtan hoose saddex qayb ku jirta. haddaan rabno in qoraalkan aan canvaska aan haysano oo cabirkan oo dhan oo 1200 ahaa dhexda haddaan rabno inaan ka dhigno waxaan dooranaynaa artboard meesha ku qorantaan dooranaynaa. laakiin hadda waxaan dooranaynaa qaybta ay ku qoran tahay selection sababtan waxa waaye laba xabaan rabnaa inaan mid dhexda dhigno marka qayb baa noo dooran. selectionka waa hubinaysaa inay ku dooran tahay qaybta kore. qaybta kadib waxaan imaanaynaa qaybta horizonka ayaan imaanaynaa oo ah inaan marka hore dhinacaan aan u saxno ku dhufo centerkay noo geynaysaa kadibna haddana waa soo baxaysaa tan kala imaanaysaa oo intay ku qoran tahay oo verticalka ah ku dhufo haddana dhexdii noo saxday. marka maxaa dhacay xoogaha wuu naga dhaqaaqay laakiin dhib male adoon meel kala taaban ayaad saddexda falaar ee ku taala keyboardka ku taala ayaad kaga toosinaysaa soo jeedid waa ku aadinaya hoos haddana u dhigaya falaarta hoose ayaan isticmaalaya qaybtan waxaan hubinayaa inay sax tahay. hadda maxaa dhacay marka hadda 100% waxaan hubnaa in qoraalkani uu dhex bartamaha ka yaalo qaybtaas buluuga ah. taas shakigii waa ka baxnay. maxaan sameynaynaa marka dhex bartamaha ma rabno marka waxaan rabnaa qaybtan kore inaan tagno.
markaas waxaan sameynaynaa maadaama aanan rabin in qoraalkan dhexda aan ka dhigno qaybtan buluuga ah, waad ku dhufanaysaa falaarihii 3 falaarood ayaad midda kor u wadaysaa. marka eeg waxa dhacaya koraan wadaya 1 2 3 4 5 mujido sidaasaan wadaya kor ilaa meesha aan raba inaan gaarsiiyo. halkaas markay joogtaan raba inaan istaajiyo. marka maxaa dhacaya waxaa dhacaya qaybtan sababta halkaa u dhiga waxay tahay hadhow marka qofku uu soo saarto qaladkan hadda meesha ka muuqda ma dhacayo oo ah in qoraalkii uu qayb ka jarmay oo aan loo wada jeedin. hadhow wuxuu ku aadayaa qoraalku halkaan ka soo baxaya, marka dadku way wada arkayaan. marka sababta hadda aan dhexda u dhigayno qaybtan waa sidaas. taas inaad marka waxa la rabaa aad maanka ku hayso waa waxyaabaha iska bedelay hadda qaybtii nashqadeynta barnaamijkan Facebook uu isticmaalo ee loo yaqaano picture frame-ka loo yaqaano. marka taas waa muhiim. intaas waa qaybtaas aan ugu talagalnay inay halkaa kasoo muuqato kore. hadda marka waxaan rabnaa macluumaadkii kale caadiga ahaa ee qofku markuu klik ku siiyo uu arki lahaa in haddana ku qorno. waa dhamaynay. waxaan sameynaynaa waan qaadanaynaa waxaan geynaynaa Facebooka sida loo geeyan raba markaan idin baro. laakiin maxaa ka horeeya marka hore qayb aad muhiim u ah oo ah sida loo save gareeyo ama loo xafido. sababtoo ah cadaankan inuu meesha yimaado ma rabno. waxaan ku iri qaybtan waxaan rabnaa inay noqoto transparent, inay noqoto rabnaa ama shafaafiye inay noqoto. maxaan sameynaynaa file ayaan tagaynaa. file markaa tagtid meeshii aad ka dhihi lahayd save as aad ka dhihi lahayd ma dhahayno. waxaan imaanaynaa export qaybtii ku qorantaa imaanaynaa. qaybaha 3 qayb ku jirta qaybta hoose ayaan tagaynaa. mar walba xasuusno maxaan soo dooranay web ayaan soo dooranay. marka waa wax loogu talagalay in internetka la geliyo, maaha wax loogu talagalay in la daabaco. marka maxaan sameynaynaa save for web legacy ayaan ku dhufanaynaa. soo ma jeedid markaan haddaan doorto JPEG haddaan doorto oo kale qaybta cadaanka noo soo baxaya. ma rabno inay qaybta cadaanka noo soo baxdo. marka sababta aad u arki laadahay maxay tahay? waxa uu arki laadahay qaybtaana waxaan ka dhiganaynaa hoosaan u dhigaynaa 50%. marka waa kaasa. marka sidaan ayuu noogu soo baxaya. laakiin hadda maxaan rabnaa qaybtan cadaanka ah waxaan rabnaa inaan ka dhigno sidaan kuu sheegay transparent. maxaan dooranaynaa PNG ayaan dooranaynaa 24. soo jeed waxay noo noqotay cadaan. kadibna waxaan sameynaynaa save ayaan leenahay, wax kale ma taabanayno. markaad soo save garaysato waxaad imaanaysaa Facebooka oo ku furan ayaad imaanaysaa. Facebookaaga waa inuu furan yahay marka hore oo gashid. kadib ciwaankaasaad ku qoraysaa halkan. soo ma jeedid tartiib waan ku sugayaa. tartiib halkaa ugu qor. maxaad samaynaysaa waxaad ku qoraysaa qaybtaasaad ku qoraysaa. haddii kale aadan qoraalkaas aad tahay lazy oo qoraalka tirada badan inaad qorta aad rabin, waxaad samaynaysaa Google tag. waa kuu fududaynaya mogta. Google tag waxaad ku qortaa Facebook picture frame kadibna enter dheh. kadib waxaa kuu soo baxaya qaybta u koraysa halka kor kaaga soo baxaya click si. kadibna isla goobtii ayaa timid. markaad ku dhufato qaybtan marka ay qoran tahay create a frame ayaad ku dhufanaysaa. markaad create a frame ku dhufato waxaa kuu soo baxaya qaybtaana kuu soo baxaysa. maxaan sameynaynaa marka waxaan sameynaynaa halkan ay ku qoran tahay open frame studio ayaan ku dhufanaynaa. kadib waxaa noo soo baxaya qaybtan ayaa noo soo baxaysa. qaybtan markay ku timaado waxaad ku dhufanaysaa qaybtay ku qoran tahay upload art ayaa ku dhufanaysaa. waxaad tagaysaa Facebookaaga desktopkaaga tagaysaa. guriga joog ayaan ku qornay waa kaa qarinayaa sababtoo ma rabo inaad aragtid waxyaabaha iigu jira meeshayda. kadib guriga joog markaan sameynay waxaa noo soo baxay. soo ma jeedid wax inaad ku aadisa kaama rabo sababtoo cabirka waa soo saxnay 1200 anaga kasoo dhignay. marka ujeedada aan soo saxay waxay ahayd inuu sidaas ula ekaado. hadda fiiri marka qaybtan ku dhufano waxa ku soo baxay tusaale ay ku tusayaan. tusaalaha wuxuu ku leeyahay marka qofka caadiga u furo sidaan ayaa u soo baxaysa. laakiin
marka qof soo saarto ee qof kale uu arko inta qofka uusan ku dhufan oo sawirka sidaan ayuu u arkaya soo ma jeedin maxaa soo baxaya inkastoo ay yar tahay oo u jeedin laakiin guriga joog oo ka hortag sidaas ayuu qoraal ku soo baxaya marka waana sida la rabo waxaan sameynaynaa marka next ayaan dhahaynaa guriga joog ayaan ku qoraynaa ciwaanka waa halka ciwaanka loogu qorayo oo qofku markuu ku baaro uu arkayo joog kadib halkan waxaa ku qoraysaa ka hortag waxyaabaha haddii qofku u baaro ka caawinaya inay durbaba uu soo baxo qoraalka uu soo baxo qaybtaa kore markaad tagto waxaa ku qormaysa magacaaga ku qoran soo ma jeedid macnaheedu waxay tahay qof kasta oo framekan isticmaala wuxuu ogaanayaa in adiga aad tahay qofka sameeyey click ayaan siinaynaa aniga marka hadda next haddaan dhaho wuxuu sameynayaa wuxuu ku tusayaa preview ayuu ku tusayaa macnaa wuxuu ku tusayaa qofka sameeyey inuu yahay aniga magaca inaan u bixinay guriga joog iyo sidaan marku soo baxayo ayuu ku tusayaa hadda marka aniga ma rabo inaan publish gareeyo ma rabo kan laakiin hadhow waxaad dhahaysaa publish ayaad dhahaysaa taa macnaheedu waxay tahay hawada u galaya marka isla markiina dadku way isticmaali karaan marka